iyadoo bilihii iyo muddooyinkii ugu dambeeyay bariga bartamaha iyo galbeedka Soomaaliland ay ku dhufatay abaar daba dheeraatay taas oo kaliftay in dad iyo duunyaba ay ku shufbeelaan subaxnimadii hore ee saaka waxa guud ahaanba Soomaaliland looga dareeray ogitaanka salaad roob doon ah oo toddobaadkan gudaheega ay ku dhawaaqday wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xubno kamida golihiisa wasiirada oo horkacayo oo ay weheliyaan xubno ka socday baarlamaanka Soomaaliland ayaa saaka dadweynaha kula tukaday garoonka kubadda cagta stadium magaalada Hargeysa wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo halkaas ku tukiyay kumanaan dadweynaha iskugu soo baxay ogitaanka salaada roob doonta ayaa dadweynaha ku waaniyay inay badiyaan alla ka cabsiga eebe دولتنا أنا من كل دولتنا نجم عليهم أني يبغون لهم ما يكون تجرب في العالم سيسوي فأنا أقول مقبل يفضل ولا تهيئ اليوم ونقول ويركب يرسلون يعني نقول ويركب ويركب أي حاجة تقول لهم أي تلاحظون تهيئ معهم أي يسردوس الناس يبصر الناس يطلب عليها المضايق وناس يوم كان بداري Sheekh Maxamed Cabdi Carab oo kamid ah shuyuukhda waaweyn ee Soomaaliland oo isaguna fagaaraha kala hadlay dadweynaha ayaa dadweynaha ku waaniyay inay badiyaan toobada eebe madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo hadal kooban oo duco u badan halkaas ka jeediyay ayaa eebe ka bariyay in ummadiisa uu ka soo jabiyo abaaraha tukashadani salaada roob doonta ee saaka laga oogay guud ahaanba Soomaaliland ayaa ku soo beegmasa xilli gobolada galbeed ee Soomaaliland ay ka taagan tahay abaar saddex jirsatay taas oo keentay in dad iyo duunyaba ay ku shufbeelaan Khadarkaafi Somali Cable Hargeysa